السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin asxaabta iyo ardayda ku xidhan Kaabe Technology and Language meel kasta dunida daafaheeda meel kasta ka sugan tihiin meel kasta joogtaan ama meel kasta ku sugan tihiin waqti kasta idin tahay xilli kasta joogtaan waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. إذا لحنتين ملك استاك سوغنتين دي أيان إذن كما هاد علينا الناس إذا قروح تبادنا نالا سعوتان أصحاب تعصبه channel كسو بيري وحن لي هاي سورو هذا كعما فرن كسورو هذا يقلب فرن كسورو هذا لما انتين وكما هاد سنتين داو شدينا يلا سعو شدينا وحن نقال سعوتان فيسبوك بيج كابي تكنولوجي and language يوتيوب channel كابي تكنولوجي and language إيو انستغرام Kaabe Technology and Language waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aan la socotaan. fadlan haddaad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe channelka noogu samayso haddaanad weli noo subscribe garayn. sidoo kale haddaanad baraha bulshada kale aan soo sheegay aanad naga soo follow garaynin fadlan naga soo follow garay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin iyo idalahaantiinba. soo dhawaada mawduuceena maanta. موضوعا مانتا عن قوة وحويا وموضوع آد أقالية موضوع عن سلايا هاي نولش هذا ولي موضوع كان أو كلاموسا صومرنين أما موضوع عن عاوة قوة يسران قوة يعني هراء ماتن أركنين ان موضوعنا وموضوع آد مهمة ميتقانا luqadda Englishka ama wax kasta oo adduunyada tan kor saaran oo la qabanayo waxay u baahan yihiin oo aanaysan ka maqnaan karin marnaba. qofku ficil ahaan marka uu wax samaynayo waxyaabo uu u baahan yahay oo aanaysan ka tagi karin oo ilaa uu waxa helo aanay waxaasi hirgalaynin. moogtahay luqadda Englishka qaybtan aan caawa ku wado inay ka tahay qaybta aadka ugu muhiimsan ee ugu weyn ee waxa weeyaan luqadda loo isticmaalo. waxaan u malaynayaa ama aan isleeyahay luqadda Englishka ama waxa weeyaan waxyaabo kale oo la dhigto ama waxa weeyaan mowduucyo kale haddii aanay mowduucan aan caawa ku wado ama mowduucan aan caawa aan halkan kaga hadli doono ama maanta xilligay ku tahayba inaanusan ka maqnayn. halka sentence aad afkaaga ka soo saarto ma u malaynaysaa inay ku jiraan mowduucaas aan caawa aan rabo inaan ka hadlo inuu ku jiro oo aanusan ka maqnaanaynin. haddii uu ka maqan yahay af Soomaaligaagaasi ama waxa weeyaan sentence-ka ama jumladaadaasi ay tahay qalad ay tahay ma u malaynaysaa halka second ee aad hadasho inaad ku hadasho erayada tan ama mowduucan aan ku wada caawa inaad isticmaasho. been idin ma sheegayo waxaan idin wadaa mowduuc aad u muhiim ah oo waxa weeyaan in badan ardaydu ay confuse ka qaadaan oo aanaysan aqoonin iyo si loo isticmaalo iyo wax lagu falo iyo waxay ka kooban yihiin san aanay aqoonin ayaan idin wadaa. mowduucan aniga saameyn gaar ah ayuu igu leeyahay waayo waqti badan ayuu igu qaatay diyaarintiisii iyo kala habeyntiisii iyo waxa weeyaan inaan adiga ku soo gudbiyo oo aan ku soo gaarsiiyo. marka mowduucan aad ayuu muhiim u yahay waliba waxaan kaaga soo dhigay as a conversation wada sheekaysi ahaan ayaan kaaga soo dhigay mowduucan. sidaad xagga sare kaaga muuqda ciwaanka haddaad luqadda aad in badan aad ku dhex jirtay oo aad luqadda aad taqaano yani waad fahmi kartaa qiimaha iyo qaayaha uu waxa weeyaan qodobkan aan caawa ka hadlaya uu ku leeyahay luqadda. haddii aad tahay qof soo jeeda oo fahansan luqadda Englishka waxa weeyaan
oo aanad qodobkan garanaynin luqadaada waxa weeyaan ma shaqaynayso ama waxba kama soconayaan. haddii aad rabto luqadda inaad barato waa inaad qaybtan si laxaad leh aad u barataa oo aad kasoo horkalaabataa dhammaanteed oo aad mowduucan ilaa bilow bardhamaad aad ila joogtaa. sidoo kale waa inaad si fiican aad u taqaanaa sida loo isticmaalayo iyo meelaha ay gelayaan iyo qaybaha kala duwan ee luqadda ay ka isticmaalayaan. waayo waxaan ku dhahay halkii sentence aad isticmaalayso ama jumlada kaliya aad istiraado dhis kuwani waa ku jiraan oo kama maqnaanayaan. hadday ka maqnaadaanna waxa weeyaan jumladaadaasi qalad bay noqonaysaa ama waxa weeyaan waxba laguma fali doono. soo mowduucaas talow muxuu noqon doonaa? mowduuca waxaa la yiraahdaa sida ciwaanka kaaga muuqato waxaa la yiraahdaa auxiliary verbs fal caawiyayaal ayaa la yiraahdaa. falku muxuu caawiyaa? dhammaan wax kasta oo la qabanayo ayuu caawiyaa. hadda mowduucan aan idiin soo gudbinayo waxa weeyaan caawiyayaal ayaa jira inaan ku soo gaarsiiyo waxba iga caawiya aniga inaan soo gudbiyo. sidoo kale adigana waxba ka caawiya inaad mowduucan aad dhageysato oo cad oo aan been ahayn. waayo haddaanad telefoon haysanin oo aanad telefoon isticmaalaynin, haddii aanad YouTube aanad soo gelinin ama Facebook ama baraha bulshada aanad soo gelinin oo aanad isticmaalaynin waxa weeyaan qaybaha internet aanad isticmaalaynin waxa weeyaan mowduucan maad soo hesheen ama halkan ma timaadeen. soo marka waad fahmi kartaa qiimaha uu leeyahay inuu fal caawiye uu yahay waxyaabaha ka caawinaya adiga falka inaad mowduuca ama hawl aad fuliso waxba ka caawinaya. haddaad rabto inaad shaqo qabato shaqada waxba ka caawinaya waxa ka koowa in gacmahaaga ay ka caawinayaan, lugahaaga ka caawinayaan, dhammaan waxa weeyaan ficilka ama falka waxa la yiraahdo ma dhaqaaqo hadaanusan lahayn auxiliary verbs aanusan lahayn. su'aalo badan baad isweydiinaysaa waa maxay auxiliary verbsku, imisuu ka kooban yahay, sidoo kale waxa weeyaan maxaa loo isticmaalaa, sidoo kale waxa weeyaan noocyadiisu waa imisa. dhammaantood su'aalahaas oo dhan aad isweydiinayso waxa weeyaan halkan ayaan kuugu sharxi doonaa. ee soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow mowduuca aadka u qaaliga ah ee aniga waliba igu muhiimka iyo adiga luqadda aadka ugu dhex jiran aad garanayso muhiimadiisa. haddii aanadsan luqadda ku dhex jirin oo aanad waxa fahansanayn qiimuhu waxay leeyihiin aanadsan garanaynin adiga kalama duwana waxa weeyaan dhagaxa kalama duwana. sidaa darteed waxaan rajaynayaa mowduuca inuu noqdo mowduuca ugu waxa weeyaan saameynta badan maadaama hadeerba uu yahay ka ugu saameynta badan aniga xaggayga, adigana inuu noqon doono ka ugu saameynta badan isla markaana siday tahay oo dhammaystiran oo aanan kala reebin ayaan mowduucan kugu bari doonaa. ee soo dhawow mar kale fadlan mowduuca waxa weeyaan laygaray oo waxa weeyaan u share garay saaxiibada oo dhan u share garay. sidoo kale waxa weeyaan channelkana subscribe ku samee oo like-ta kala bakhaylin, anigu kaalama bakhaylin casharka qudhiisa ee adiguna like-ta kala bakhaylin. sidoo kale waxa weeyaan mowduucyada aan soo gelinay dib wada check garay oo soo eeg bal hadda qiimaha iyo qaayaha ay leeyihiin. ma rabo inaan dood badan kula sii galay, fadlan mowduuca inoo like garay, channelkana inoo subscribe garay, Facebook iyo YouTube iyo waxa weeyaan Instagram-na naga soo follow garay oo waxa weeyaan noo soo like garay. intaana san bilaabin mowduuca waxaan ka rajaynayaa inaad mar kale aad mowduuca aad like garaysay. fadlan mowduuca like garay, mowduucan aad iyo aad ayuu muhiim yahay haddaanad luqadda Englishka aqoon. marka waxa weeyaan like garay mowduuca. magacaygu waa Sharmaarka Caraale Jaamac. alaab waxaan idila socodsiiyaa barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan. ee soo dhawaada mar kale. auxiliary verbs waa fal caawiyayaal ama waa fal gargaarayaal, falka waxyaabaha dhisaya, caawinaya ama ficilka waxa u taqaanaba waxa weeyaan waa waxa dhaqaajinaya ee ficilka dhaqaajiya ayaa loo yaqaan auxiliary verbs. haddaan si kale kuugu dhigo waxa weeyaan waxna ma dhaqaaqayaan haddaanaysan auxiliary verb aanaysan lahaynin oo aan auxiliary verb aan loo isticmaalaynin. haddaba what is the auxiliary verb? muxuu yahay auxiliary verbsku? maxay yihiin auxiliary verbs? what is the auxiliary verbs used for? maxaa loo isticmaalaa auxiliary verbs? mowduucan ayaad ku baran doontaa. waxaan ku yiri jawaabtoodu waa tan. auxiliary verbska is a verb waa ficilka which kaasoo helbi caawiya other verbs ficilada kala caawiya to form suu u sameeyo ama meeshaas ay uga dhalato different tenses dhacdooyin kala duwan ay uga dhashaan is known as waxaana loo yaqaanaa auxiliary verb. fal caawiye ayaa loo yaqaanaa ama fal gargaare ayaa loo yaqaanaa, fal kaabe ayaan dhihi karnaa. sidoo kale waayahay su-aal kale meesha taala oo aase dialogue ayaan u sameynaynay, su-aal iyo jawaab oo kale ayaan u sameynaynaa. how many imisa auxiliary verbs? auxiliary verb are there ayaa ka jira in English language luqadda Englishka imisa auxiliary verb ayaa ka jira? jawaabtii waa tan. dheeraar waxa jira iyadoo kooban ayaan ku sheegayaa. dheeraar waxa jira 26 auxiliary verbs 26 auxiliary verb ayaa jira in English language luqadda Englishka waxa ka jira 26 auxiliary verb ayaa ka jira. haba kala caansanaadaane
laakiinse 26 auxiliary verb oo aan la isticmaalin waxa weeyaan luqadaas ma soconayso ama ma hirgelayso waxaan soo qaadanoo kale list of auxiliary verbs waxaynaan taxno auxiliary verbyada ama waxyaabaha auxiliary verbs ka loo yaqaano list tax of auxiliary verbs ka ita sida ogtiin luqadda Englishka waxay leedahay 3 verb ayaa ka jira oo international ah ama caalami oo la isla yaqaano oo famous ah oo maxaa kamid ah saad taqaano waxay jira verb to be iyo wax loo yaqaano verb to do iyo wax loo yaqaano verb to have intaas ayaa waxa weeyaan oo verb ayaa luqadii waxa weeyaan ku dhex jira oo waxa weeyaan loo isticmaalaa soo marka waxaan ku tusi doonaa waxa weeyaan si toos ah ayaan intaba ku gacanta kuugu saari doonaa waxaan u horeysiinaynaa verb to be ka loo yaqaano be da ayaan soo qaadanaynaa be and its form be iyo qaabkeeda sidoo kale waxaan dhihi karnaa be and its structure qaabka ay leedahay structure ka adigu hadda qaab baad leedahay yani qaabka ay leedahay be ayaan u soo qaadanay be waxay ka kooban tahay waxa loo yaqaano verb to be ayay ka kooban tahay oo ah iyo is iyo are iyo was iyo were intan ayay ka kooban tahay beedu oo waxaana la yiraahdaa verb to be waa kuwa verb to be ga loo yaqaano ahaansho ayay ka hadlaan sidoo kale waxa jira verb to have mid la yiraahdo and its form marka have oo u madaxa verb to have ka waxaan leenahay have and its form have iyo waliba qaabkeeda ama structure-keeduna wuxuu ka kooban yahay have iyo has iyo had ayuu ka kooban yahay saddexdaas ayaa ay ka kooban tahay qaybta have to iyo structure-keeduba verb to do ka taqaano waa do and its structure ama its form do iyo qaabkeeda waxay noqonaysaa waa do iyo does iyo did iyo done intaas ayay ka kooban tahay ama verb to do ga waxyaabaha qabasho ayuu ka hadlaa verb to do gu verb to have kuna wuxuu ka hadlaa haysasho waxa uu qofku uu leeyahay ama uu haysto verb to be guna wuxuu ka hadlaa qofku waxa uu yahay ama shay waxa uu yahay ayuu ka hadlaa okay waa ku sii socodsiinaynaa shall and its form shall iyo waliba qaabkeeda iyaduna maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay shall iyo should iyo will iyo would ayay ka kooban tahay waxa ku jirta auxiliary-yada oo kamid ah can ayaa kamid ah and its form can iyo waliba qaabkeeda ayaa kamid ah can baa kamid ah iyo could iyo may iyo might ayaa kamid ah erayadaas ama auxiliary verbyada ama caawiyayaashaas ayaa iyadana kamid ah sidoo kale waxa weeyaan waxa kamid ah auxiliary verbs ka must ayaa kamid ah and its form iyo waliba structure-keeda ama qaabkeedu muxuu noqonayaa waa must ought to iyo waxa weeyaan need iyo dare iyo user to iyo waliba have to ayuu ka koobmaya marka must waa waajib waxyaabaha waajibka outna waxa weeyaan sidoo kale waa waajib need waa baahi dheer ku dhiirasho sidoo kale waxa weeyaan user to waa waajib imka ayaa loo isticmaalaya user to haday iska daba dhacdo waxa weeyaan waajib baa loo isticmaalaya have to sidoo kale waajib ayaa loo isticmaalaya so waan ku sii soconaynaa hadaad intan auxiliary-yada halkan aan kuugu sheegay ama intan halka ku qoray hadaad tiriso waxa weeyaan waxay ka kooban yihiin 26 auxiliary verb oo shanta qaybood waxa weeyaan marka 6 qaybood koobsaday ama 6 qaybood waxa weeyaan ka soo farcamay oo kala ah be and its form have and its form iyo do and its form shall and its form iyo can and its form iyo must and its form markaan kulay ka soo farcamay yani madax ayay u yihiin intana ayaa madax u ah waayo ku sii socodsiinaynaa waxaan leenahay kinds of auxiliary verbs noocyada auxiliary verbs ka ayaan ka hadli doonaa su'aal kale how many imisa kinds nooc of auxiliary verb are there ayaa ka jira in English language luqadda Englishka imisa auxiliary verb ayaa ka jira there are waxa jira 2 auxiliary verbs laba auxiliary verb ayaa ka jira in English language luqadda Englishka si kooban hadaan kuugu sheego auxiliary-yada auxiliary waxa loo qaybiyaa laba qaybood ayaa loo qaybshaa haylaabin structure-ka ama qaabku wuxuu ka kooban yahay list haddii aad u baahato waxay ka kooban tahay 6 qaybood ayay ka kooban tahay noocyada auxiliary-yada loo qaybiyana waxa weeye sidoo kale waxa weeyaan waa laba auxiliary verb ayaa loo qaybinaya laba nooc auxiliary verb ayaa loo qaybinaya waa ku soconaynaa wallahi ashkana aad ayuu finin mawduucan ka faa'iideyso mawduucan save garayso oo meel ku qoro oo mawduucan meel dhigo oo mawduucan la garayso mawduucan aad ayuu ku muhiim yahay noloshaada inaan uusan ku soo mari doonin ayaa dhici karta marka ka faa'iideyso waaye waxaan kinds of auxiliary verbs noocyada auxiliary verbs ka waxaan leenahay how many imisa kinds nooc of auxiliary verbs auxiliary verb are there ayaa ka jira in English language luqadda Englishka waxaan leenahay there are waxa jira 2 kinds laba nooc
of auxiliary verbs oo falcaawiye ayaa ka jira in English language luqadda Englishka laba auxiliary verb ayaa ka jira wada arday maxay kala yihiin kan madawada iyo adigu explain inaad sharaxdo mi aniga their names magacyadooda iyo iyagaba ma sharaxi kartaa of course taban I can explain you waan ku sharaxi karaa and here they are waxayna kala yihiin labada nooc ee loo qaybinayo auxiliary-yada waxa weeye waa primary auxiliary verbs iyo modal auxiliary verb labadaas ayaa loo qaybiyaa soo kale kan marmar baa la yiraahdaa secondary auxiliary verb primary auxiliary verb iyo waxa weeyaan modal auxiliary verb ama secondary auxiliary verb labada auxiliary ayaa auxiliary-yada loo qaybiyaa marka hay laabin ee maskaxda ku hay keep in mind ilaali oo maskaxda ku hay auxiliary-yada noocyada auxiliary-yada waxa weeye waa primary auxiliary verb iyo waliba modal auxiliary verb ama secondary auxiliary verb hadaba what is the primary auxiliary verb muxuu yahay primary auxiliary verb used for maxaa loo isticmaalaa primary auxiliary verbka primary auxiliary verbka are verbs waa ficilada used loo isticmaalo to form in lagu dhiso ama lagu qaabeeyo negative statements lagu sameeyo questions iyo su'aalaha lagu sameeyo and tenses iyo waliba dhacdooyinka lagu sameeyo are known as waxa loo yaqaanaa ama are called waxa la yiraahdaa primary auxiliary verb ayaa la dhahaa waxa la dhahaa primary auxiliary verb ayaa la dhahaa example tusaale ahaan maxaa kamid ah baa kamid ah iyo is iyo are saddexda halka ku jira sidoo kale waxa kamid ah was iyo were iyo been ayaa kamid ah do iyo does iyo did iyo done ayaa kamid ah have iyo has iyo had ayaa kamid ah marka auxiliary-yada hadaad halkan ka fiiriso iminka waxa weeyaan waa inta halkan ku taala yaani waa afar qaybood oo min saddex weeye afar hadii saddex lagu dhuftana waa 12 xabadaas 13 ku noqonaysa marka primary auxiliary verbsku wuxuu leeyahay intan ayuu leeyahay 13 ka auxiliary verb ayuu leeyahay waxay laabin primary auxiliary verbsku waxay leeyihiin 13 auxiliary verb ay leeyihiin oo ay kamid tahay am iyo is iyo are was iyo were iyo been do iyo does iyo did iyo done iyo have iyo has iyo had intaas ku kooban yahay oo su'aal kala meesha taala oo how many imisa auxiliary verb oo ficil waxa weeyaan falcaawiye ayaa haas uu leeyahay primary auxiliary verbku imisa ficil oo falcaawiye ayuu leeyahay primary auxiliary verb haas uu leeyahay 13 auxiliary verbs 13 auxiliary verb ayuu leeyahay sida weynagu meeshan aan ku soo xusnay above table ka sare sidaan ku soo xusnay waxa weeyaan wuxuu leeyahay 13 auxiliary verb ayuu leeyahay oo ku sii socotinayna waxaanu bixinaa qaybo kala duwan oo luqadda ah oo online courses ah waa ku diyaarsan yihiin haddaanadsan luqadaadu aanaysan dhisnayn waqti xaadirkan waxa weeyaan waad ka faa'iideysan kartaa waad ku soo biiri kartaa classes online ah si waxa weeyaan joogtaa loo qaato waaye kinds of auxiliary verbs ayaan wali ku sii guda jirnaaye waxaan u gudbaynaa waxa weeyaan kalabaad oo ahaa modal auxiliary verb muxuu yahay what's the modal auxiliary verb used for maxaa loo isticmaalaa modal auxiliary verb modal auxiliary verbsku are verbs waa ficilada used loo isticmaalo to express in lagu qeexo various modes waxa weeyaan fikradaha aragtiyada kala duwan various modes aragtiyaha kala duwan loo isticmaalo weeye and mental attitudes iyo waliba fikradaha maskaxeed loo isticmaalo waxaan ku to express waxa lagu qeexaa various modes aragtiyada kala duwan qofku soo wuxuu arko aragtida qofka maskaxda niyada ugu jirta aragtida soo wuxuu arko and mental attitudes iyo waliba fikradaha kala duwan ee maskaxeed like sida waxa kamid ah waxyaabaha loo isticmaalo hope oo kale rajo ama expectation inuu qofku wax rajaynayo rajayn uu samaynayo oo muxuu rajaynayaa possibility macnaha suurtagal ahaanshiyaha waxaasi ay ku fuli doonaan ama ay ku socon doonaan goorma futurity ayatinka dambe ama mustaqbalka dambe say noqon doonaan ayuu ku fikirayaa qofkaas marka arnownas waxa loo yaqaanaa modal auxiliary verbs ayaa loo yaqaanaa aan kuugu celiyo modal auxiliary verb ama secondary auxiliary verbska are user waxa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo various modes aragtiyada kala duwan mental attitudes iyo fikradaha waxa weeyaan maskaxeed like sida hope rajada expectation rajaynta possibility macnaha suurtagal ahaanshiyaha futurity ee mustaqbalka ahaanshiyaha arnownas ama called waxa la yiraahdaa waxa weeyaan modal auxiliary verb ama secondary auxiliary verb ayaa la yiraahdaa secondary auxiliary verbs marka maxay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin can iyo waxa loo yaqaano could iyo waliba dare sidoo kale waxay ka kooban yihiin may iyo might iyo ought
sidoo kale waxaa ka mid ah modal auxiliary verb ama secondary auxiliary verb ka will iyo would iyo user to sidoo kale waxaa ka mid ah modal auxiliary verb ama waxa weeyaan secondary auxiliary verb ka shall iyo should iyo have to iyo must iyo need ayaa ka mid ah dhammaantood waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa modal auxiliary verbs ayaa loo isticmaalaa marka modal auxiliary verbs kuna waa 14 auxiliary verb kii horena 13 auxiliary verb buu ahaa isu geyso adigu labada tiro oo isku dar marka intii horena primary auxiliary bay ahayd intana waxa weeyaan waa modal auxiliary how many imisa auxiliary verb haas ayuu leeyahay secondary auxiliary verb ku imisa auxiliary verb ayaa dhexdiisa uu leeyahay secondary auxiliary verbs ku haas wuxuu leeyahay 14 auxiliary verbs 14 auxiliary verb sida weynagu meeshan aan ku soo xusnay ama aan ku soo sheegnay the above table ka sareysaan ku soo sheegnay kaalmada wadaya adigu explain inaad sharaxdo their names magacyadooda auxiliary verbs ka ficilada and also sidoo kale can you give me mayga siin kartaan examples tusaalayaal abood ku saabsan auxiliary verbs ki oo dhameystiran all of them intay leeyihiin yes I can explain you waan ku sharaxi karaa their usage isticmaalkooda and examples waliba tusaalayaashooda ee ila sii soco follow me till the end si aad mowduucan aad uga bogato fadlan buug iyo qalin soo qaado mowduucan ka faa'iideyso mowduucan oo kale ma jiro waxa weeyaan noloshaada waxaan u maleynayaa inaanadsan uu ku soo marinin mowduucan hadduu ku soo maray hore oo aad sidan oo kale usoo dhigatay fadlan bal ii soo sheeg commentiga igu soo qor aragtidaada sidoo kale fikirka ku soo dhiibo usage hadda waxaan geli doonaa usage isticmaalka of auxiliary verbs sidee baa loo isticmaalayaa auxiliary verbs-ka waayahay halkan waxaan ku qornay qaybtan waxaan ku qornay waxa weeyaan kinds of auxiliary verb noocii auxiliary verb ka waa ka ilaa halkaas ay ku taala kinds of auxiliary verb xagana waa nooc numberkii tirooyinka intay ka koobnaayeen sidoo kale xaggan waxaan ku qornay usage and examples of auxiliary verbs ki marka qaybtan waa examples ki sidoo kale waxa weeyaan qaybtan waxa weeyaan waa noocii auxiliary aan isticmaalay xagana waa numberkii ama tirooyinkii weey soo waa si bilaabayna artan ugu soo horeysanayna weynagu waxaan nahay playing ku ciyaaraya football kubadda cagta in the stadium garoonka kubadda cagta ayaan ku ciyaaraynaa marka arti waa halkan lagu isticmaalay waana falcaawiye waana ahaansho waana verb to be ayaa loo yaqaanaa amtaan u gudbaynaa number 2 oo waxaan leenahay anigu waxaan ahay writing mid qoraya the letter warqad ayaan u qorayaa with my friend saaxiibkay ayaan qorayaa waa tan halka lagu isticmaalay amti shayadu dancing waxay ku jaasaysaa ama qoob ciyaar ku sameynaysaa on the stage masraxa ayay ku ciyaaraysaa ama waxa weeyaan halka ardayda hortooda ayay waxa weeyaan ku sameynaysaa dance ayay ku sameynaysaa where ayaan u gudbaynaa oo arti oo isu bedeshay past iyo adigu where waxaad ahayd listening mid dhageysanaya the BBC ayaa dhageysanaysay at 2 PM labadii duhurnimo oo buura waxaad ahayd mid dhageysanaya waxa loo yaqaano BBC da was he isagu was wuxuu ahaa watching mid daawanaya TV-ga ayuu daawanayay in the afternoon galabnimadii ayuu daawanayay TV-ga been ayaan u gudbaynaa how many imisa years sanadood adiga have you been at waxa weeyaan have you been learning aad diganaysay been waa halka lagu isticmaalay have you been learning aad diganaysay English language luqadda Englishka how many years have you been learning English language intiba diganaysay luqadda Englishka doodaan u gudbaynaa do you pray ma tukataa the 5 compulsory prayers shanta salaadood ee waajibka ma tukataa regularly si joogto ah iyadoo waa su'aal do you pray ma tukataa regularly si joogto ah ma tukataa 5 compulsory prayers shanta salaadood ee waajibka daas shay iyadoo kam hiya halka miyay timaadaa every day maalin kasta and every season iyo xilli kasta das ayaan halkaana ku isticmaalnay did baan isticmaalanaa did iyagu help miyay caawiyeen the refugees people dadkii qaxootiga ah miyay caawiyeen yesterday morning shalay toole subax miyay caawiyeen dadkii qaxootiga ahaa half baan u gudbaynaa halfway inagu been staying here been halkan iska sii joognaa miyaynu joognay halkan sanis ilaa iyo 2020 miyaynu inagu halkan joognay halfway been here stay here sanis 2020 inagu miyaynu joognay 2020 kii ilaa iyo hadda miyaynu joognaa inagu halkan welina miyaynu joognaa has baan u gudbaynaa he isagu has been working wuxuu ka shaqaynayay ina Dangarad College wuxuu ka shaqaynayay for 5 years ayuu ka shaqaynayay maana 5 sanadood ayuu ka shaqaynayay Dangarad College they had been sleeping for 2 hours waxay hurdeen iyagu 2 saacadood ayay hurdeen when he went there markuu isagu halka uu ka doonayay ama uu iyaga doonayay
كان بنقول بينا كان وينقول كان وحنا ودنا speak إن نكو هذا لنا English إنجليزي as well سيفي عن نقول هذا لنا as a native people سيدا ضدك اللغة دور الشوك علينا نقول هذا لنا وين أودنا إن سمينه هالكاس واحد كبرتي صدق طبعا example آيات كبرتي أو auxiliary verb كي أو sentence لقليي أما جملة لقو سمي وكسي سعوديننا فضلا إلى أيوب بربلا ولا برنامج هذا إلى صعود نصيب كارايات لا هاي أعتقد عشق الله كلانتي وحوي نصيب كارايا لديهن وحنا دليل congratulation موضوع هذا مهمة أيام تقاضتين فضلا موضوع ويليا وحوي أنها كلاب خيرنا لايك تيارك تدينا وكسي سعودينا kinds of auxiliary verb usage استعمال كودي بنكو كده شرناي ما إذا نقول بينا ما إذا حلنا هاي ما يوالغا يابا يو adigu make inaad samayso conversation wada sheekaysi sanis ilaa iyo 2 hours 2 saacadood inaad wada sheekaysi aad samayso waxa weeyaan waa laga yaabaa oo waa wax dhici kara waad ku hadasho luqadda Englishka way oo kusii socoteynana waxaan leenahay might iyaduna sidoo kale waa iyadoo past you might spending waa laga yaabayay inaad ku kharash garaysaan the money lacag with a little care xoogaa gargaara inaad lacag ama kharash ah gelisaan oo waxa weeyaan خرج لعب خرج كريسان دلالان وحويان جرجارهان ولقيا بي إنها خرج أكلين دونتان حقال little care أكو بحين دونتان يودين كما يوحلقيا بي spend إنها كو خرج كريسان دماني لعب with a little care حقا جرجارة أكو سمايسان ولقيا بي أوتو سيدوك ليدون السوق لو حويان وواجب أوتو وواجب بركيو أديك أوتو حكو واجبة لاف إنها تشالاتو your parents والدين تادينا جعلاته وكواجب وليبا جعلاته deeply سقطة ديرة أدو جعلاته will وحويان وهي يساقو will agree وكوكو راعي دونا أما وكوكو لهشين دونا your good idea فكرة هذا في عن وكوكو راعي دونا أما وكوكو لهشين دونا user to وواجب شيء يدا user to حكو واجب teach إنا يودكتو أما أي برتو novels book تشيكوينكا to school children عروضة school كا يدا حكو واجب إنا برتو book تشيكوينكا إنا برتو وينقو shall visit وإنا نبوغنا our parents والدين تينا and friends يوليب ساحيبادنا وإنا نبوغنا on the holidays وقت يدا فصحا وإنا نبوغنا مركا شلبا ميش اللوغة سنترسك الله استعمالي should ayaan u gudbaynaa he isagu side wuxuu yiri that he should go hadii uu aado the capital he isagu side wuxuu yiri that he should go isagu wuxuu aadi doonaa ayuu yiri the capital caasimada ayuu aadi doonaa next year sanadka soo socda ayuu aadi doonaa hadalkan hadda fahmi weydeen waa indirect speech oo hadal waxa weeyaan yar duwan marka he side isagu wuxuu yiri that he should go wuxuu aadi doonaa isagu the capital caasimada ayuu aadi doonaa next year sanadka soo socda masti waa waajib weynaga masti waxay nagu waajibaa complain inaan ka cabano the corruption musuqmaasuqa of the police ee police-ka musuqmaasuqooda inaan ka cabano way nagu waajib need waa baahi do you need miyaad u baahan tahay to tell me inaad aniga ii sheegto something wax abood ku saabsan our country wadankeena waxaad u baahan tahay inaad aniga wax iiga sheegto miyaad u baahan tahay dheer waa ku dhiirisho dhointi dheer fadlan ha ku dhiiranin to do inaad qabato ama aad ficil ahaan u samayso what you have said wixii aad tiri inaad ficil ahaan inta badan aad u fuliso waxaad afka ka oranayso inaad ficil ahaan aad u bedesho ha ku dhiiranin inta badan could shiyadu could work loan waxay shaqeynaysay in badan ayay shaqeynaysay shiyadu could work waxay shaqeynaysay loan in badan ayay shaqeynaysay waan markii shiyadu was young ay yarayd in badan ayay shaqeynaysay have to waa waajib ay aniga have to waxay igu waajiba take inaan qaato more courses koorsooyin badan in Dangarad College inaan koorsooyin badan ka qaato ayaa igu waajib would oo u dambaysa waxaan leenahay we inagu would to express waa inaynu u sharaxnaa u qayaxnaa our appreciation raali gelin ahaanshiyaheena ama mahad celinteena waa inaan u sharaxnaa appreciation mahadnaqeena waa inaan u sharaxnaa all our friends dhammaan saaxiibadeena waa inaan u sharaxnaa mahadnaqeena oo maxaan ugu sharaxaynaa for their help caawimaadooda waa inaan ayna caawiyeen waa inaan mahad celinteena ama saynu raali uga nahay waa inaynu u sharaxnaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay haddaad halkan ila soo gaadhay insha Allah waan rajeynayaa inaad xiisad fuula qaadatay inaad mowduuc aad iyo aad u muhiima oo waxa weeyaan
aad iyo aad luqadda ugu muhiima inaad baratay maanta insha Allah waan rajeynayaa inaad mowduuca la garaysay intaan mowduuca xiga isugu iman doono kan ka xiisa badan qaybtiisii kale ayaan rabnaa qaybta ku sii xigta sida loo isticmaalo meelaha ay gelayaan qaybaha qaladaadka keena iyo sidaabaha confuse-ka laga qaado ayaan mowduuca xiga ka dhigi doonaa intaan ka xiga isugu iman doono magacaygu Sharmaarka Haraale Jaamac fadlan waxaan ka rajeynayaa inaad mowduucan aad la garayso asxaabtaadana sidoo kale aad u share garayso fadlan mowduucan la garay sidoo kale waxa weeye channel-kana naga soo subscribe garay Facebook iyo Instagram-na naga soo follow garay intaan mowduuca xiga isugu iman doono waxaan kaaga tagi doonaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.